wasiirka wasaaradda biyaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Maxamed Muuse Diiriye oo howlo shaqo u jooga waddanka Jabuti casuumaad rasmi ah ka helay dhigiisa wasiirka biyaha ee Jabuti ayaa ka qayb galay munsabad ballaaran oo uu ku sugnaa madaxwanha jamhuuriyadda Jabuti mudane Ismaaciil Cumar Geele. Munsabadani oo ahayd mid loogu talagalay dadka naafada ah iyo dadka baahida gaar kale ee waddanka Jabuti. sidoo kale waxaa isna munsabadani ku sugnaa oo joogay safiirka Somaliland u fadhiya waddanka Jabuti Ambassador Cabdifataax Siciid Axmed. munsabadani oo ah tii labaad oo laga xuso waddanka Jabuti looguna talagalay dadka naafada ah ee waddanka Jabuti ayaa waxaa markii ay soo dhamaatay madaxwanha Jabuti oo qaar ka mid ah dadka naafada ah guddoonsiiyay qalabka loogu talagalay dadka naafada ah. waana edition-gii labaad oo laga xuso waddanka Jabuti. maxamed jaamac waale warbaahinta qaranka Somaliland Jabuti.